magacaygu horta marka koowaad waa Maxamed Maxamuud Axmed kuna magac dheer Saqraawi. Run ahaantii anigu waxaan ku dhashay gobolka Puntland, waxaana ku soo barbaaray magaalada Boosaaso. Kubaddeeda cagtana iyadan ilaa iyo maxay ahaydey yaraanteed ilaa iyo haddeer heerkan aan joogo iyadan ku soo dheelay. booskana haddeer joogana waxaan matalayaa xulka galmudug dee meel la yiri yaa tahay niyo adiga halkaas u dhalatay ma ahayn. waa meel micnihii kubaddayda la arkay oo kadibna micnihii koobka degmooyinka markaa dheelayay macalin Caftaax aad iyo aad halka ugu salaamaya taatiko baa kubaddayda run ahaantii aad iyo aad isagoo aan aqoon buu arkay. dee dadkana run ahaantii micnihii markii meel lagu geenayo micnihii waa lagu fiirinaya waxaa tahay iyo micnihii qaabkaaga. kubaddayda markii uu arkay degmooyinku ii qaatay degmooyinka dheelay sideed dhamaadkii baa ku soo harnay degmada Hodan. saasay tahayna dee macalin Axmed Tahal uu daawanayay cayaarihii degmooyinka saasaana ku soo galay xulka galmudug inaan matalo. wallaahi horta run ahaantii waa jiraan dad micnihii social media la wareegaya Saqraawi waa yaryahay baa la yiri maxay ahaydey waa laga soo tegay. aniga run ahaantii horta wax Puntland na dhex mara oo wada hadal ma jirto, sababtoo aniga dee markaa Boosaaso joogana kubaddayda waa arki jiray cayaaro professional waa dhalay ee koob ka mid yihiin oo kale koob Gaalkacay laga furay, koob Qardho laga furay oo kale. dee dadka xiriirkaana badanaa way daawanayeen oo Puntland u qaabilsan. isma lahayn micnihii dee run ahaantii adiga ahaan waa lagaa tegayaa oo markasta hamigayga waxaa ku jiray sanadka xulka Puntland waa matalaysaa. laakiinse ma ay dhicin oo maxay ahaydey dee nasiib uma aanan yeelan inaan Puntland matalo. saasay tahayna waxaa nasiib u yeeshay inaan galmudug matalo. aad baan ugu faraxsanahay galmudug taa haddeer joogo insha Allah. qof walba oo ila soo hadlo wuxuu leeyahay hambalyo niyo aad baan ugu faraxsanahay micnihii horumarkaa gaartay dadkii kaa tegay oo kale oo aad ka hortimi oo aad isku bartay lugtaada. run ahaantii dee anigana wax niyaddeeda ku jira ma ahayn run ahaantii horta Puntland isbar, laakiinse waxay hamigayga koowaad u ahaa inaan maamul goboleedkayga kow horta aan guul la gaaro, finaalna aan la tago koobkana aan la qaado. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay haddeer finaal baa joognaa insha Allah. waxaan rajaynaynaa inaan koobka qaadno. markii ay kubaddu tahay in adiga aad dheelaysid oo kale oo meesha aad ka soo jeedid aad la dheelaysid dee goorta shaqo unba adiga meesha ku taala, taageernimo maahan. anigana waajibaadkayga gudanaya baa leeyahay taageerayaasheeda. ninna dee shaqadiisa maxay ahaydey laguma naco. waxaa leeyahay micnihii anigu waajibaad isaarnaa baa gudanayay maadaama idinkana aad rabteen inaad badisaan, anigana waxa u socday hadafkaygu wuxuu ahaa inaan guulaysto. marka labada hadaf uunbaa isdiidanaa, marka raalli ha ahaadaan. wallaahi horta mustaqbalkayga waxaa jeclahay horta mar uun inaan calaamadda aan xirto fanaanadda qaranka Soomaaliya oo aan qaranka matalo insha Allah. rajadeeda ugu weyn waa taas.